السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحبيال مeel kasta ee dunida dacaladeeda ka joogtaan jimco wanaagsan. waa 27 December sanada 2019 qodobada barnaamijka ugu xiisaha iyo xamaasada badan aan kusoo qaadan doono waxaa kamid ah waxyaabihii ugu xamaasada badnaa sanada 2019 ee gabagabada maraya. dhinac kasta ayaanu ka eegi doonaa iyadoo diyaaradeenu marba meel caga dhiga doonta goobta aan ilaawna shidaalka ayaa inooga go'ay. aan ku horumarno barnaamijkeena kuna bilowno wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo u xiran maamulka Somaliland muddo dhowr bilood ah iyagoona ku eedeeyay inuu yahay qaran dumis. waa dulmanihii la dulmiyay balse wali xabsiga linta ku cabaya. waxaan u rajeynaynaa haddii Allah awood raalli ka noqdo inuu noqdo mid xorriyadiisa dib u hela. Cali Aadan Muumin oo ah wiilka magaalada Muqdisho uga caansan xagga baraha social media ahna looga yaqaan qarax qoto oo dhowr jeer xabsiga loo taxaabay balse wali cadaalad sugaa isna. aanu ka baxno goobta aanu joogno diyaaradeena gaaska kama go'ino waan buuxsanay hawada ayaanu ku jirnay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan noqotay sanadkii ugu soo saarista badnaa dhanka fanaaniinta waliba kuwa mucjizooyin gaar ah kala soo baxay fankan aan hore looga aqoon. haddaba fanaanada codka dabacsan muuqaalka aragtida daymada daawashada wacan codkeeda halaasigana maskaxda la daawo u yahay oo fanka ku soo biirtay waliba iyadoo ku soo gashay qaab ka duwan qaabkii hore looga bartay fanaaniinta kale. haddaba fanaaniintu isku wada mid maahan waa fanaanada boqorada halyeyga codka dabacsan Fartuun Balbalaarka oo iyana sanadkan noqotay mid saameyn weyn ku yeelatay dhanka baraha social media fankana wax ka bedeshay. wali dhanka fanaaniinta ayaanu ku jirnay fanaanada Deeqa Afrax oo iyana sanadkan laga qoray yaan lay aasin qabriga waa nacbahay oo geed dushiisa hal ay saaro markii dambana soo heshay halkii la saari lahaa. dhanka siyaasiyiinta aan u duulnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa laga qoray hadal ahaa thumma wallahi thumma billahi isagoona ay ahayd mid xanaaq uu ka keenay balse isna wuxuu ka mid yahay dadkii ugu saameynta badnaa ee social media la isla dhaxjaan qaaday. isqa qabsiga dhanka baraha social media culimaduna kama maqna oo sanadkan waxay noqdeen kuwa iyagana ugu saameynta badan oo baraha social media fariimo kala gadisan hawada iskugu marinayay kadib markii wadaadka caalimka ah Sheekh Umul magaalada Muqdisho muxaadaro oo ka qaban lahaa ay ka hor istaageen culimo oo diinka ahlus sunna wal jamaa. dhanka isqa qabsiga qabiilada ee baraha social media sanadkan ayaa hoos u dhac fara badan la dareemay marka la isbuur bardhigo sanadkii 2018 oo saameyn fara badan uu qabiilku ku yeeshay baraha social media balse sanadkan waxaad moodaa hoos u dhac inuu keenay isfahanka dhalinyarada. aanu dhanka iyo iskaabulada eegnay gudoomiyaha ururka iskaabulada ayaa sanadkan isna ammaan dusha iskaga saaray isagoo aad moodo inuu u hadlayo malaayiinka iskaabulada ee ku xiran kuwaasoo uu dhiirigelin siinayay. lagama aamusina gudoomiyaha ururka iskaabulada waxaa isla durbadiiba hadlay gudoomiyaha ururka xaaslayaasha isagoona ka sheekeeyay nimcada gaarka ay haystaan aanan haysan ururka loogu magac daray iskaabulada cambaareena dusha ka saaray. lama kala harin sanadkan waxaad moodaa in marba dhinac la iskugu dhagayay balse wuxuu ahaa sanad aan dagaal iyo dhibaato fara badan social media dhexdiisa ka dhalan waana farxad gaar ah. lamaanihii farxadda jacaylka hees qurux badan isla wadaagayay iyagoo midba midka kale wacad ku marayay inaan midka kale cidlan doonin laakiin fanaankii ugu beenta badnaa sanadkan ayaa loo aqoonsaday Mursal Muuse markuu yiri miyaan gabar kugu labayn karaa waliba isagoo hortaagan gacalisadiisa ina jacayl oo raxmad ka muuqatana ku eegaya balse markii ay garoonka soo gashay gabadha Donald Trump adeerku yahay Hodan Cabdiraxmaan ciyaartii oo dhanba waa isbedeshay oo waxay noqotay arag oo imaqal. anyax weerar ku soo qaaday maamulada Somaliland iyo Puntland oo laga hergeli waayay oo markii dambe magaalada Cadaado magangalyo soo doontay balse uu noqday mid la isku sharfo martiqaadkiisana laga dhigtay in la isku casuumo. waxyaabihii sanadkii dhacay oo dhan kuma soo koobi karno qoraal iyo sheeko balse waa inta aan idin soo xulnay waa ku mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigeena qaaliga aad geliseen. haddii aad kelinimo tahay waxaan idin rajeynaynaa inaad ka baxdaan nolosha kelinimada ah. haddii aad laba tihiin ama aad lamaana tihiin waxaan idin rajeynaynaa qoys barwaaqo ah bashbash iyo barwaaqana ku gaara nolosha inta ka dhiman. inta aan sanadkan lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.